waxaa maanta dib loo furay waddo hormarta xarunta gaadiidka booliiska ee degmada Cabdicasiis taasi oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee xaafadaha waqooyiga magaalada Muqdisho kaasoo sanado ka hor lagu gooyay dhagxaan iyo carro sabab la xiriira sugitaanka amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariisow oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan booliiska ayaa saakay dib u furay wadadan isagoo sheegay dib u furidda wadadani ay qayb ka tahay in dib loo furo dhammaan wadooyinka kale ee xiran si loo fududeeyo isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka caasimadda injineer Yariisow ayaa ugu mahad celiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ogolaanshahooda ay wadadani ku fureen si ay qayb uga qaadato horumarka iyo bilicda caasimadda wuxuuna tilmaamay in talaabadani ay xigi doonto furitaanka wadada horumarta xarunta dambi baarista ay CID-da taasoo muhiim u ah isku socodka magaalada duqa Muqdisho waxa uu sheegay in furitaanka wadooyinkan ay kaalin muhiim ah ka qaadan karaan amniga iyo horumarka caasimadda raxiim saa u jeedaan maanta waxaan joognaa xaruntii gaadiidka booliiska oo aan runtii uga mahad celinayno taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintoodaba sida ay nooga aqbaleen codsigeena ahaa in wadadan loo furo shacabka si ay shacabka isu socodkiisa u sahlanaato tan waa bilow waxaan ku soconaa waxay tahay dhammaan wadooyinka inay yihiin wax shacabku leeyahay sidaas daraaddeedna aan doonayno inaan dhammaantood inta xirxiranba aan furno intii amni looga maarmi waayo moogiye sidaas daraaddeed shacabkan waxaan leenahay wadooyinkii iyo waxay nooga wada baahan yihiin dhammaanteen inaan ka wada qayb qaadanno dhismahooda si bulshada ay horumar u gaarto oo dhan walba ah marka mar kale booliiska waxaan uga mahad celinaynaa muxuu ahaa sida ay nooga aqbaleen codsigeennii una soo dedejiyeen sidoo kale dhammaan hay-adaha kale iyo ganacsatada oon ognahay marshibiyadii shacabka iska lahaa iyo wadooyinkiiba qaybo ka mid ah xirxiray in ayagana ugu baaqayno inay si degdeg ah dhulka danta guud inaan la xiri karin ay u ogolaadaan in la furo si shacabku ay uga faa'iideystaan marka aad u mahadsantihiin wadooyinka marka la furana waxa noogu xigo sidii wadooyinkan loo dhisi lahaa ganacsigana u horumari lahaa waxa naga go'an waxay tahay caasimad amni ah oo horumarsan taasna waa midaan ka wada shaqayn doonno waa mahadsantihiin wadadani ayaa waxay muhiim u tahay dadka u dalxiis taga xeebta Liido iyo dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha kubadda cagta oo halkaasi ka agdhow garoonka kubadda cagta ee Koonis ee hadda ka socda ciyaaraha heerka koowaad Cabdullaahi Maxamed Jubbaland TV Muqdisho